daawadayaal ku soo dhawaada Warsaaf Media. Waxaan idin caawa sheeko mucjiso ah oo loo yaqaano Dyatlov Bus Incident ama dhacdadii duska buuraha Dyatlov. Waxay ahayd bishii February 1 ilaa 2 1959 waa 9 dhalinyaro ah oo uu hogaaminayo nin khabiir ah oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah ee Ruushka. waxay ka dhacday qisadu buuro ku yaala waqooyiga fog ee dalka Ruushka, qayb ka mid ah buuraleyda loo yaqaano Uralska ama Ural Mountainska ee dhinaca gobolka Siberia. 9 dhalinyarada ah oo dhiganayay jaamacad polytechnic ah oo ku taalay wadanka Ruushka ayaa waxa ay u baxeen cilmi baaris iyo sahan, waana dadka loo yaqaano trekkerska ama dadka socda buuraha fuula kaymaha mara. dad horey u sameeyeen ahaa socdaal noocan oo kala ah. waxyaabaha mucjisada ah waxa ay tahay qaabka dadkani ay u dhinteen, qaabka loo soo weeraray iyo waxyaabaha gaaray iyo meelaha ay ka gaareen oo mucjiso reebay oo la garan waayay. waxaa jirtay habeenka ay wax ku dhacayaan kaamarad ay siteen oo talaabo walba ay qaadaan ay ku sawirayeen inay qabatay iftiin cirka ka imanayay, taasoo dad badan ay u saariyeen in waxa la yahay quruumaha cirka ka yimaada ee wata suxuunta duusha. waxyaabaha kale ee la soo bandhigay dadka qaar ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa in tijaabooyin ay jireen ciidamada Ruushku ay ka sameynayeen meelahaas oo hub sir culus ah lagu sameynayay meelahaas, isla mar ahaantaana la diiday inay dadkani ogaadaan waxyaabaha ay tijaabeen ciidamada Ruushka, sida daraadeedna loo laayay. hase yeeshee dadkan kama ay muuqanin nabaro ay u geysteen bini aadan kale. dadka qaarkood waxay soo jeedeen inay bahalo weerareen dadkan, hase yeeshee nabaro ay geysan karaan xayawaan lagama helin, kamana muuqanin. markii baaritaan dheer lagu sameeyayna waxa ay ku soo gabagabeeyeen baarayaashii waagaas ee midowga Sovieti dadkan in ay laba wax dileen, mid oo ahayd awood aad u culus oo aan la garanaynin waxa ay tahay iyo qabowgii markaa jiray meesha ay joogeen. qisadii oo dhammaystiranna hadda ayaan idin sheegaynaa.